madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda hoggaamisa iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maalintii labaad kaga wada hadlaya fiila Soomaaliya ee Muqdisho arrimaha doorashooyinka qaranka ee 2021 qodobada qaarkood ayaa dooduhu adkaaday waxaana kaliya oo wada hadlaya madaxda sare ma jiraan door ay leeyihiin xubnaha kale ee ka agdhow dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka atoona shalay ayaa doodu bilaabatay iyadoo lagu duldoodayo qodobadii ka soo baxay dhuusamareeb 3 wax waqti oo aan lagu lumin ajandihii iyo doodihii la qabay shirkii dhuusamareeb 2 waxa doodu ku dul bilaabatay qodobadii dhuusamareeb 3 iyo heshiiskoodii laga doodo sidii loo hirgelin lahaa laakiin Puntland iyo Jubbaland hore uga maqnaa fadhigii dhuusamareeb 3 waxay soo gudbiyeen doodaha ay ka qabaan qodobada ku jira heshiiska ay ka maqnaayeen oo ay ka mid yihiin cidda maamulaysa doorashada ka dhacaysa dalka 2021 heshiiskii dhuusamareeb 3 waxa uu awood siinaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ay hogaamiso Xalimo Yarey waxaana golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa 28 bishii hore ay soo jeediyeen in guddiga doorashooyinku ay maamulaan doorashooyinka laakiin Puntland iyo Jubbaland waxay doonayaan in la magacaabo guddi doorasho la mid ah kii 2016 si ay u maamulaan doorashooyinka magacaabida guddigan dambe waxay dowlad goboleedyadu u doonayaan waxa jiri kara guddi hoosaad saameyn ay ku yeelan karaan oo guddiga qabanaya doorashooyinka haddii la magacaabo guddi la mid ah guddigii 2016 doorashooyinka maamulay qodobka labaad ayaa meelaha lagu qabanayo waana qodob adag oo aysan sahlanayn inay si fudud uga tanaasulaan saxayaasha dhuusamareeb 3 gaar ahaan madaxweyne Farmaajo oo doonaya in deegaan doorashadu ay noqoto mid ballaarato oo la geeyo ugu yaraan deegaanada amniga ee muhiimka laakiin qorshahan waxa la soo arkaya dowlad goboleedyada qaarkood Axmed Madoobaha hogaamiye Jubbaland waxay u tahay dilan siyaasadeed marka la eego gadow aan ku jirin gacantiisa laguna soo doorto xildhibaano oo uusan waxba kala socon karin iyo qorshaha halka ay maalin uga wada dhici karaan doorashooyinka deegaanada oo dhan isna waa dood u baahan heshiis siyaasadeed oo dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin qodobka saddexaad waa arinta xisbiyada lagu gareeyo doorashada dowlad goboleedyada badankooduna waxay doonayaan in xisbiyo xilligan ayna saxayn oo aan loo diyaarsanayn Puntland waxay soo jeedisay xisbiyo beelo gaar ay leeyihiin oo kaliya hadda ay furan yihiin aysan aqbali karin in waqtiga nidaamka asxaabta badan doorashada lagu galo iyadoo doorashaduna ay tahay mid dadban oo wax yar ka duwantii dhacday 2016 iyo tirada codbixiyayaasha oo dowlad goboleedyada qaarkood doonayaan in laga dhigo 101 ilaa 150 xubnood iyo cidda soo xulayso ay doonayaan in xuluhu uu noqdo isinka beesha kursiga iskale tani waa dood adag oo kale oo ayana dhinacyada oo dhan ay ku kala aragti duwan yihiin dowlad goboleedyada qaarkood oo ay ku jiraan saxayaasha dhuusamareeb qaar kamid ah waxay doonayaan in qodobka ku saabsan tirada guud wax ka bedel lagu sameeyo gaar ahaan codbixiyaha oo lagu soo koobo 101 ilaa 150 xubnood inta u dhaxaysa taas way la qaabaan hogaamiyaashii ka maqnaa madasha dhuusamareeb 3 waana qodob u muuqda in dhinacyadu ay heshiis ka gaari doonaan xilli hore wakiilada caalamiga ah ayaan door lahayn waqtigan kulamadu ay socdaan marka laga reebo arrimaha weesheeda sare kala socdaan haddana ma jiraan faragelintoos oo ay madasha fadhiyaan 72 saac ee nagu soo aadan ayaa la filayaa in dooduhu ay sii socdaan waxaana ilaa hadda ay u muuqdaan hogaamiyaasha wada hadlaya in kalsooni ay ku qabaan isqancin karaan sida ay sheegayaan xogaha ugu dhow ee laga helayo doodaha badankooda waxa kadib la saadaalinaya inay gaari doonaan heshiis rasmi ah kaasoo bilowga toddobaadka soo socda la filayo in loogu walqalo fiila Soomaaliya